ku soo dhawow channelka Galgalan News taabo calaamada guduudan ee subscribe kadibna ku dhufo gambaleerka si aad u heshid mar walba barnaamijyada iyo wararka aan soo gelino Galgalan News waxaan ku mahadcelinayaa dhammaan soomaaliyeedka ilaahay baa horta mahadle isugu keenay maanta inagoo u dabaaldegayna maalinta qaaxada ee adduunka wixii macluumaad ku saabsanaa TV-da دكتور علي حسن باسيطي عمرو الجلي كل قربينه وآيات دورتي وما سيهاي أنا وحن كذا لها وحن وحي كشيء لها activities كأوضيعها أو ردود لها عقبها هرتاجن يوحي كوزارات مع لهان عن مسؤولية الوقت أو كتان شهر وحن كلنا هاي شن يطول حرمات ولهان كنت لها شن يطول حرمات يقول هاي oo ay caawiso hay'adda World Vision oo iyadana ay si caawiso global fund waxa ka shaqeeya shaqaale fara badan ayaa ka shaqeeya aad runtii ugu mahadcelinaya shaqaalaha ka shaqeeya ku hawlan la dagaalanka qaaxada shaqaalahaas runtii iyo xarunahooda caqabadooyinka iska jira caqabadooyinka waxaa ka mid ah sanadkii 1900 sanadkii 2017 kiisaska la daaweeyey waxay ahaayeen 2451 2018 waxaa la daaweeyey 2147 halkaa waxaa ka garanaysaa xoogaa hoos u dhacay inuu ku yimi sanadkii ugu dambeeyey 2018 hoos u dhacaas oo ah 304 kiis hoos u dhaca waxaa ugu wacan caqabadaha aan hadda hoos usoo sheegi doono insha allah oo ay ka mid yihiin waxa ugu muhiimsan ay tahay dhaqaale xumo iyadoo dhaqaalihii fankii lagu bixin jiray TV-da uu hoos u dhacay hoos u dhaca fankuna waxay keenaysaa in shaqaalihii mushaharkii uu ka yaraado islamarkaana daaweyntii TV-da ay hoos u dhacdo waxay kaloo keenaysaa dadkii wacyigelinta TV-da dadka wacyigelin lahaa inayna hoos u dhacaan runtii taasi waa caqabad jira weeye marka ka anaga ka wasaarad ahaan siyaasiyan waxaa naga go-an iyadoo ay iska jiraan duruufo dhaqaale inaanu hubinno in hawlaha TV-da la dagaalanka TV-da ay halkooda kasii socdaan oo aanay hoos u dhicin iyadoo ay jiraan duruufo dhaqaale waxaanu rajaynaynaa ama aanu rajo weynahay inaanu u raadino fan oo aanu hubinno inaan fanku hoos uga dhicin hawlaha TV-da ay halkooda kasii socdaan waxaan runtii aad uga mahadcelinayaa shaqaalaha